سدا salaadaha in sida walaalayaal u ilaalino waa laga maarmaa maalinta jumcada aynu joogno si gaar ah nabigu wuxuu u tilmaamay qofka maalinta jumca soo maydha oo mariyihiisa mariyaha ugu wacan soo xidha oo cadar soo marsada oo isa soo udgiya oo goor hore masaajidka yimaada qofka goorta hore u yimaado masaajidka wuxuu la mid yahay neef geela qof sadaqaysta saacada ku xigta qofka yimaada wuxuu la mid yahay neef loo qof sadaqaysta saacada ku xigta qofka yimaada wuxuu la mid yahay neef ariga qof sadaqaysta saacada ku xigta qofka yimaada wuxuu la mid yahay digaagad inuu sadaqaysta saacada ku xigta qofka yimaada wuxuu la mid yahay xabadu kuna inuu sadaqaystay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxyaabaha hadaba guntiyo gunaanadkii acmaashan aynu saalihaadka sameeynayno maanta waynu nool lahay laakiin berri ma noolin marka ajashu timaado ma noolin maanta marka noosha waxaad u baahan tahay khaanada acmaashaada lagu ridayo wax badan oo camal inaad ku ridid salaadaha sunnayaasha inaad badsato salaadaha sunnayaasha aad badsamayso marka u horeysa way ku badanayaan waa marka labaad way biirayaan waa marka saddexaad way badbaaday bari ku noqon doonaan faralkaagu hadduu wax iska dhimo sunnaha lagu buuxin doonaa inuu marka ku dadaalo cimriga iyo waqtiga maanta qofka xalaal ku jira ma awoodi karo laba rakacadood inuu tukado laakiin adigu imisaad awoodaa inaad tukato in badan ba awoodaa aynu ku dadaalno sunnayaasha iyo weysada qofka waxaan ku gabagabeynayaa qofku inuu ku dadaalo mar walba inuu weysa qabo wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam weysada qof aan mu'min ahayn ma ilaaliyo marka shaqada u kacayso haddaad suuli kasho ka soo baxdo weysayso garan maysid gooraad dhimanayso ma adigoo kursiga ku fadhiyaad dhici doontaa naftu kaa baxaysa gaadhaa ku jiiri doona maxaad ku saad u dhiman doontaa adoo weysa qaba ilaahay la kulan subxaanahu wa ta'ala goor kasta daawade la soco ku xidhnow page-ka Facebook ee Dulmar Media fadlan daawade follow garayso page-ka Facebook ee Dulmar Media siina leek garayso page-ka si aad goor kasta halkan uga heshid warar iyo warbixino ku raali geliya waad mahadsan tahay ee goor kasta la soco ku xidhnow Dulmar Media